nin cabsanaya oo cararayana maaha aniga hal baalood hadda aniga haysto ninka xabad ugu soo rido waa ku ridaya oo ilaahay uu ogyahay waa ku jeedna haddana annaga mar walba dhinaca nabadda iyo dalku inuu xasiloonaado ayaan aad mataqaana u danaynaynaa laakiin dee qofka marka ama nidaamka marka uu waddada ka habaabo maalinta cadaa habeen u noqonaysa wuxuu bilaabaya inuu godad ku dhaco marka godadka maxaa ka mid ah annaga dalka xurmaan ku leenahay xurmada aan ku leenahay waxaa soo hogaaminay xilli adagaan soo hogaaminay doorasho caadilaan ka qabanay asagaa ku guulaystay waa ku wareejinay waxaan ku leenahay xurmo intee ka yimid ciidanka inta la soo diray anay xabad igu soo ridaay ciidanka ilaaladeeda xabadaynaya ciidanka joojinaya dadka aniga ay booqanaya intee ka yimid ciidanka sharciga ku dhisay bal isweydiiya maxaase keenaya intaas waxaa sii dheer habeenii maalin haddana dadku ku soo diraya ayadoo qofka kula fadhiyo oo kuu soo diray waxaa lagu leeyahay inta ciidanaa galay inta ciidanaa galay inta ciidanaa galay su-aashaana raba marka ciidanka inaan weydiiyo saraakiisha ciidanka iyo ciidanka qalabka sida madaxweynaha waqtigiisa waa dhammaaday annagana dembi ma gelin maxaa keenaya annaga in la cabsi geliyo oo ciidan ugala wareejiyo maxaa u samaynaysiin arrintaas waxaa u samaynaysiin mushaarka dartiisa mase waxaa u samaynaysiin sharcigaa idin faraya inaan fahmaan raba aniga madaxweynaha iyo askarta hadday umaleen inaan cabsanayno cararayno annaga ma cararayno dad carara waa ka weyna annaga waa ogtiin magaalada nabadeeda waxaan ku bilaabnay gurub yar oo kooban iyadoo culeyskooda badan yahay xabadkan u dhigan culeysyo badanaa naga soo waajahay xabadkan u dhigan ilaaha ku mahadsan marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed xasan sheekh waa na day waayo waa naga hari waayo maanta fariinta uu isoo diray waxay ahayd guriga ha ka soo baxo gurigiisu hara ku laabto aniga guriga aan degayo xasan sheekh makala tashanaa suuragal ma tahay arrintaas guriga aniga aan ka degayo xamar xasan sheekh miyata inuu ii ogolaado suuragal laa waa ogtiin ayaan dhawaad meesha aanan soo degay odayaal masaakiina iyo maamooyina la soo kacshay isla sheekadii la qorxiyey haddana laysoo dhiibay maanta madaxweynaha diyaar waaye laan guriga ka soo baxo soo noqo deegaankaaga ku soo noqo waxaan ku dhaama noqonay gurigaan waa soo dega danta aan soo dega ama jooga marka mar kale dadka soomaaliyeed ani waxaan rabaa inaysan dulumka fiirsanin dulumka waa loo dumaa waana la soo ciqaabaa annaga maanta dadkii hub lagu muuqin lahay mani waxaanu hadlayna wallaahi cabsi maaha laakiin dalkan u turayna xasan sheekh dadkii masaakiinta gurigoodu ka barakaashay dastuurkii heshiiska lagu ahaa waa tuuray doorashadii waa lagu kala irdhoobay haddana wuxuu ugu dambeeyey xamar inuu xabad ka rido rabaa xabadda intay sadhicin aan xurna xabadda intay sadhicin hala jooji saraakiisha ciidamada waxaan leeyahay xabad ha igu soo ridina ciidankayga xabad ha ku ridina dadka ii socda ka leexa wiilasheedii ati haddaad yeeli weysiin adduunya aakhira kala hari mayno wallaahi inaanan kala harin waana ogtiin dalkan waxaan usoo qabtay nin cabsanaya oo cararayana maaha aniga hal baalood hadda aniga haysto ninka xabad ugu soo rido waa ku ridaya oo ilaahay uu ogyahay waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.